بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والثناء والسلام على رسول الله. الحمد لله. waxaan halkan barnaamijkeenu maanta aan ku qabanayno uu yahay maxaa la dhahaa tilmaan ama ka jawaabis ninka af Soomaaliga ka dhigtay midka tuulada dadkiisa oo kaliya ay ku hadlaan ninkaas oo dhowr mar ku soo laalaabtay Cabdi Good baa la yiraahdaa. Abdo waxaan ku weydiinaynaa af Soomaaliga, waxaan ku sheegaynaa af Soomaaligu ma ahan midka tuulada reerkiina oo kaliya uu ka soo jeedo ay ku hadlaan ee af Soomaaligu waa af Soomaali aad u faraweyn oo u badan oo dalka Soomaaliya oo dhan looga wada hadlo. adiguna ma ahid nin qaari ah oo nin qaari ku ah oo lahjada af Soomaaliga oo dhan wada yaqaano ama cayaaraha hidaha iyo dhaqanka oo Soomaaliya laga ciyaaro wada yaqaano. tan ugu horeyso oo la yaab kale waxay tahay waxa tiri isla dhuunta dhuumashadii dhuumasho waaye. dhuumashogu waa ciyaar laga ciyaaro dhulka koonfurta ah, especially magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. dhakacu waa ciyaar laga ciyaaro koonfurta Soomaaliya oo ah magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda laga ciyaaro. adigii suugaantu waxaad ka dhigatay midda adiga ay kula tahay, marka sixid suugaaneed kaama ahan. barnaamijkaadana magac ayaan anagu ula baxnay. magacaan ula baxnayna wuxuu yahay intaan dhihi karo aan dhahe idaafa aan idinka dheeldheelay ayaa la yidhaha barnaamijkaada. waxaa tahay qof dhihitaan nin uu yiraahdo dhaliil inuu u yeero dhuuni ku goobaya ayaa tahay. waxaad matashaa ama iska dhigtaa abwaanadii Soomaaliyeed oo suugaanta Soomaaliya ama heesaha Soomaaliya ku caanbaxay oo la yaqaano sida Xasan Garey Allah u naxariistay, Dhamac, Hadraawi, Sangub, Kaari iyo qaar kale oo lamid ah. dadkaas haday maanta wax saxaan waa mid aan aqbali karno oo ogolaan karno. adiga kumaad soo aroorin sidii kuwaas oo kale. see wax u saxdaa dhugasho ayaad ka hadashay. indhuhu wax way dhugtaan. indhuhu wax way dhugtaan. adigu waxa tiri indho wax dhukanay ma arkin. midda kale oo mucjizada ah oo la yaab kale waxay tahay qofka tilmaanta uu bixinayo ama humaagsiga uu sheegayo adiga taada kaliya kuma cabiri kartid. wax markii la xukumayo waa inay lahaataa dad badan oo wada, laakiin kaligeeya wax xukumo waa wax mucjizo ah oo adigu leedahay. marka waxaan ku leenahay niyo xisho, Ilaahay ka xisho, ummadda Soomaaliyeed ka xisho, beenta ha sheegin. laba nin oo fanka iyo suugaanta Soomaalida aad loogu jecel yahay sidii Hadraawi iyo Maxamed Xaashi Dhamac oo dhinta Allah u naxariistay ayaad iska dhigtaa oo matashaa. ma noqonaysid mamaankaada wax u dhiman yahay, ma caqligaada fooraro. dhugashadu waa indhuhu wax way dhugtaan. yaa ku yiri ma dhugtaan? indhuhu wax ma dhugan karaan waa adiga ku xukumaya. midda kale cayaaraha wadanka lagu ciyaaro oo dhan miyaa taqaanaa? dhuumashogu waxaad ka dhigto wax khaldan oo zina ah. ma ahan, waa ciyaar la ciyaaro. gabdho iyo wiilal baa ciyaaro, wiilal kaliya ciyaaro, gabdho kaliya ciyaarka. dhuumashogu waa ciyaar laga hadlayo. marka ma ku fahmin. waxaad tiri ma Talyaani ma eray Talyaani miyaa ku jiro? ma Jaynaysa ku jiro? maya. waxaad u xaqlinaysa lama yaqaan. fanku suugaanta iyo ciyaaruhu ma laha soohdin, ma laha kalar, ma laha abtirsiimo. waa wax qofka Ilaahay hiddo u siiyo uu leeyahay. farshaxanka oo kale waaye. marka niyahu horta wax sameey, adiga suugaan soo curi, markaas ka bacdi nin wax saxa noqon kartaa. waxba ma taqaanid maxaa saxaysaa? ma inaad dhamac iska dhigtid oo aad masajid subxaanallah alxamdulillah waa erey wanaagsan, waa Ilaahay oo adaa xumo ka nasahan. alxamdulillah Ilaahu ma hadle, laakiin wax kala meesha ku haysa male. war xisho fan waxba kama taqaan, suugaan ma ogid, waxa taqaan male. midda kale fanaaniinta Soomaaliyeed aan leeyahay waxay tahay in uu Cabdi Good suugaan ka hadlo cudur nin mahmaha wuxuu yiri cudur yahu geeri adaa ii nugley. inuu Cabdi Good suugaan ka hadlo waxa u sababa kuwa fanka ku ciyaaray oo iyagoo gabar boga ku hayo iyagoo dhunkaray soo saaray. marka Cabdi Good inuu hadlo kuwaasa u sababa, laakiin Cabdi Good oo suugaan meesha kuma haysid. abtirsiimo maahan suugaantu, waa hidaayad qofka Ilaahay uu korkiisa geliyo waay. godadka sheegaysi ma kala taqaan. aniga hadda caaw iraahdo Hadraawi meel kale ku nool yahay, Xasan Garey meel kale ku nool yahay, Sangu meel kale jooga, haddaan iraahdo
aan ciyaar iraahdo way fahmi karaan adigu laakiin ma fahmi imbulaafya waa gacan imbaylaeli waa xarig haddaan iraahdo adigu ma garan kartid raggaas maanta horey ka fahmi karaan marka niyo tartiibso horta inta aadan wax sheegin adigoo suugaan soo curay ha lagu arko waxaa suugaanta ka taqaano laakiin adigoona suugaan aqoonin godkan iyo godadka maba kala taqaanin yaa kuu kala sheegay waa maqlay waa baawsaday miyaa ma dhamac iyo waxaad iska dhigaysaa hadraawi iyo kale miyaad iska dhigaysaa ma noqon kartid ma gaari kartid war wax soo diyaari marka ugu horeyso dadka ummadana ka daa ma talyaani baa ma Chinese aad tiri suugaantiya bulshada u taala way ku arkayaan dadku caqli way leeyihiin haddaad adiga ismoodo inaad dadka ka garasho dheerta kama garadhishid dheerid meesha aad u socoto iyo ujeedkaada dhan war ma ahan suugaantu ma ahan wax fanki iyo sportigu ma ahan wax oo farac iyo abtirsiimo iyo raaca ma ahan xisho rabbi ka xisho oo dadka ka xisho oo meel ka dhacaa sameeynis ka xisho marka dhaysid talyaani hadda bulshada way ku ogeyd way aragtaa qofka taliya koonfur ka soo jeedo talyaani oo adeegsada masaas bay ka tahay war xisho waxaas qiimo ku malay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku mahadsantihiin adinka intiina meesha iga dhageysanayeen